KNN. nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midimiidaysay maahino si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan KNN waryaada reer kalamaanow maalin kasta halkan geedkaana isugu timaadaane xageed soo martaan dadka jeedka waa ka helan yihiin qurbaleey soo xambaara goormay noogu dambaysay waryaadheen anugu maanta tii ugu darayd baan arkay war ictiraaf ma hashan war caloosha ka xanuuntan iyo dhageyso maanta waxaan arkay boolis uu military baarayo war booliska amniga magaalada eega u xil saarane sidee loo baarayaa warniyo maktabada qarankan maanta arkayay iyadoo boolis uu military baarayo warniyo waa waalantahay sidee qaraxii xarunta gobolka Banaadir u dhacay is-aamin ma jiro marka Fahad iyo Farmaajo xitaa waa inay isbaaraan war adeerow Muuse bixiyo Faysal Cali Waraabe midnaba lama baaro maandheesko dawlad aanan isbaarayn dawlad ma aha warnimayo waxa ma ogdiine hees uu sameeyay Abaan Axmed Saciid Saabir kooxda horseedna ay qaado ayaa wuxuu ahaa dad baa jira kula jiro haddana kaasi jiro jirkana midabkaagalo cadowga ku jabinaye iska jir dawladeena iska jir war allaha ka al walba mooshida heestas walba dareeno lagan sooyniyow mid cusub iyo lafta garan sameey war Axmed Madoobe la xameeyay naga dhageyso war waa soo saarisi daniye maad ka dhagaysataanin oo dhageysadee markan dad baa jira soo socdo jabhadii soo diratayo jid furan baan soo arkay iska jar Somaliland iska jar war ma jabhadii carraadin soo gashay war dawladda beenta ka daaya jid furan uma jire hatta kiima kaal mukrama number 4 in laga jaray waa ogtiini iska jar dawladeena iska jar war wadada madaxtooyada soo gashaaba furane iska jar dawladeena iska jar war waxa la yiri jaranjarada umbu ka galay dabaq nin jiifa jid hadaan la kala qaadanayn joorfal baa dhaca jaranjarada laftigeeda iska jar dawladeena iska jar kale heestan barbar miyay bedeshay war bari ku dhameeda ma le iska jar dawladeena iska jar maandheesko waa yaabaye dawladda hadday meel kasta iska jarto intay ka beexaysaa war duqdaan waa waalan tahay ma dawladana bixis rabtay inay joogtay rabtaa iska jar dawladeena habraha war iska jaraad ku waalateene madaxweynuhu wuxuu sheegay inay jirto xasilooni siyaasadeed waxaana uu yiri xasiloonida aan haysano oo kale ayaan u rajaynayaa maamul goboleedyada wuxuuna sii raaciyay xasiloonida aan haysano dastuurkaad ka garanaysiin xasiloonida marka dadku ay falanqeeyeenna waxaa soo baxday inay tahay wada jooga madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ee iska jar dawladeena iska jar maandheeyo ma dastuurkii qabyada ayaa loo codeeyay iska jar eedadeeye iska jar warnimayo xasilooni siyaasadeed waxay ahayd halku dhigi Umar Cabdirashiid marka Umar Cabdirashiid baa nabadii nolol ku soo biiray masayintu maqnaabay dawladdu halku dhigiisii bilaqaysatay war xasiloonida siyaasadeed oo aad sheegaysaan iska jar dawladeena iska jar war madaxweynuhu hadduu sheegay xasilooni siyaasadeed maamul goboleedyadana soo asagu madax uma aha ma xasiliyo aan hel aasa awlaadima ka tirsan war maamul goboleedyada laftigooda kii caasi noqda iska jar dawladeena iska jar warnimayo anigu waxaan dhihi lahaa shacabka Muqdisho bugta iyo balaayada qaraxyada dhacaya iyo balaayada idin dul saaran iska jar bulshadeyda iska jar bilay ku xasada la yiri abo malowbo waniya wax ma kala ogina waxa la yiri balaaya la iskula jiro bala umale iska jir dawladeena iska jar war iska jar warka weyn baan idin hayaa dhageysta ogow Muqdisho ogow maalmuhu siday ku soo mareen maaha isku mide qofkaaga muwaadinka dartaan u soo mitiday intuu murugaysan yahay martida ku soo
soo gashiyo ajnabi maafiya iyo mooryaankuna faraxsan yahay haddii aad moogtihi iyo hadday kuu muuqataba waxaa tahay meel mugdiya iska jar muqdishoobe iska jar warwar ma haysaane buntland waxay xusaysaa sanad guuradii 21aad ee aasaaska dowladda puntland madaxdii oo dhanne iskugu timid boowe cidday dhibaysa baraaraha puntland ilqumba ma furataannu nidhi hallabaawine barooway ku jiraan baas ma jire iska jar puntlandey iska jar war xerada 21aad dhuusamareebay ku taallaaye goormaa puntland loo raray warnimiya uusan walsayaha waraabteen 22 oktoobar derbuwan ku goranta wadiyahoy beenga sheegin madiya 22 oktoobar wadiya talbuunkan ugu garjiriyaan ku dhahay war annaga maxamed siyaad barre markuu sanad guuradiisii 22aad xusay baa noogu dambaysay warwar ma ogdiine kowda agoosta puntland waxay u dabaaldegtaa aasaaskii maamulka galmudugna waxay u baroordiiqdaa jenaraal caydiid waryaa beentaan iska daacaydiid galmudug kuma dhimana xamar buu ku dhintay ay oo ta'ooyin adduunyu waa dhammaati baariyo aweesa aakhiraas jira war kuwaana ma aweeskay u dabaaldegayaan war qabaar waa ka heshaane qorshihii galgaduudoo in dhoweed la qasaayey maxamuud iyo khayre midkeebaa ku khasaaray qarafaanse ma joogi war haanyo ani warkoosiyay dhagansoy waayahay od diidnayga damboyta weliba isla daba teeganyiin war waxba ma ogdiine wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ahna musharax madaxweynaha jubbaland wasiir Omar maanta waa hadlay warnimiya uniba anta baalgamuundnimin iyo ejajiiday wasiir waa bahaysa madaxweynaha ninka daradoo faday waandheeyo wasiir Omar wili hawada ma ku jira war hanala duulinay waa waalantiinina dhagaysta raadiyo kulmiya asagoo la hadlayo maanta wuxuu yidhi kismaayo waxaan uga baaqday waxaa la rabay buu yidhi markaan tago in qalalaasa laga dhaliyo oo dagaal laga huriyo anna anigoo dadkayga u naxaya ayaan ka joogay war waa kismaayiya kistaada xadiiska baaqdii booskii madaxweyne binaayay farax ma ka rabiyay barfuunka lee iigu banee war Omar madaxweynaha kama tanaasuline Axmed Madoobe ka cabsanaya eega awgood la gubwar ma haysiine asayid Axmed Madoobe xiriirka dawladda waa jaray wuxuuna ku soo afjaray iska jir Jubbaland iska jar warnamiyo ani warsiin haay dhageysada may dheegi jiray horta waran reedkana geyle odayaalkii koldhow ay shabaab weereen shabaabkii aan seeden ha ifayaga ala goorba marka taliyaha booliska koonfur galbeedna ma erey haanyo ayaa weylag way ma bahaniinagada koran ma eri kasaasana he laandheeri ah dawladda hadisay waana shabaab hoostika gale wala una nagaadanayo waana gaadada korname maaniinagada koran birraf yeeri iska jar dawladeena iska jar war shabaab iyo dawladda wal maxriira ka dhaxay waa yaabay maxaa la jara war madaxweynaha ma sheegay in dawladda shabaab ku jiraan iska jar dawladeena iska jar warnimada muslimiinta shiinaha dhibaatad culus haysata waxaana la yiri waana meesha adduunka ugu daran ee muslimka cariiri lagu geliyay war muslimiinta shiinaha waa u dooday madaxweyne Shim Ju codka ma fahmaa ana kasaayo luqada maxawaam kasaasin shawa war muhiim ah waaye war muslimiinta Myanmar ee Rohingya ayaga waa rafaasan yihiin war dib ku sugaa Falastiin naftiya ka jarta war muslimiinta Afghanistan lagu leynayo miyay lowdeen maanta aba 100 baabuur lagu qarxiyay war yaada warkiinu waa tacsiidii madaxweynuhu Tunis u diro kaleeto markaad muslimiin la xirxiray ka hadlaysan kuwa maalin kasta Muqdisho lagu laaymaadna arkay war dadka damiirkii laga jaray warkooda inta naga dhaaftaan iska jar dawladeena iska jar war adeer iska jar annaga iska jar Somaliland iska jar war ya jarjarkiina ma qaado isku qabkaba wax wala isku yaray wariya iska jar dawladeena iska jar kulmiye news network waxa ay ku wargelinaysaa idaacadaha caadaystay baahinta goosgoosyada fariimaha iyo idaahyada idaacadda kulmiye u diyaarisay dhagaystayaasheeda iyo macaamiisheeda ganacsi inay ka waantoobaan waa xuquuq u gaar ah idaacadda kulmiye kuna bixisay maskax muruq iyo maal lamana isticmaali karo fasax la'aan digniin haddaba warbaahintii aan ka harin falkaasi billiqada ah waxaan la tigsan doonaa sharciga
dardaaran haddii aad dadaashiin waa diyaarsan kartiine dib ugu laabta naftiinna ogow wax aadan lahayn kuma qancin kartid dhegaystahaaga ee ku qanci waxaad leedahay gacansiin waxaan diyaar u nahay idaacaddii xayeysiimaha goosgoosyada iyo fariimaha ay samayso KNN naga codsato inaan caawin doono KNN dadaalaa wuu gaaraa KNN kulmiye idaacaddu waa kulmiye